الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى. daawadayaal waxaan ku jirnaa barnaamijkeenii marxaban ya ramadaan idinkaga imaan jiray tv-ga kalsan. barnaamijkan oo xalaqadii waxaan ku jirnaa ama qeybtii shanaad. maanta waxaan uga hadli doonaa in sha allahu tacaala soonka iyo anwaacdiisa, midka waajibka ah, kuwa waajibkaasay u kala qeybsamaan, midka sunnada ah, iyo maraaxishii uu soo maray soonka faralkiisu uu soo maray. hadda ka hor baan ka soo hadalnay soonka bisha ramadaan in la soomo iyo xukunkeeda iyo macnaheeda iyo inuu waajib yahay oo ruknu min arkaan islaam uu yahay. hore ayaanu uga soo hadalnay. soonku marka laga eego xagga xukunkiisa sida nusuusta ku soo aroortay culummada muslimiintuna kutubta fiqiga ay ku sheegeen waa anwaac weeye, anwaac qaybo weeye. waxaa ka mida mid faral ah, waxaa ka mida mid tadawuc ama sunno ah. midna waa faral, midna waa tadawuc, ama haddaan si kale u cabirno midna waa waajib, midna waa mustaxab. waxaan ognahay axkaamta diinta islaamku 5 weeye. waajib waxaa ka soo horjeeda oppositekiisa xaaraam, ha u dhowaan. labadaas waa iska soo horjeedaan. wax waajib ah inaad samaysid, wax xaaraan ah inaadan u dhowaan. waxaa kaloo iska soo horjeeda wax mustaxab ah oo haddaad samaysid ajar badan aad ka helaysid, laakiin haddii aad samayn weydid aadan dembi uusa kaa soo gaarayn. iyo wax makruuh ah oo nala amray inaan ka fogaano, hadday kaa dhacaan si dembi aadan kaa soo gaarayn. waxaa u dhexeeya mubaax, waa istawaa طarafayn baa la yihahda. waxaa sinmay waa haddaa rabtid inta samay, haddaa rabtid inaha samayn wey. inkastoo mararka qaarkood waxa mubaaxa ah haddii maaragtay aad u neysatid niyo wanaagsan, laga yaabo in uu noqdo wax ajar ilaahay uu kaa siiyo oo aad xagga ilaahay maaragtay aad ka heshid ajar iyo dembi dhaaf. soonka marka faralka ah ayaa isaguna noocyo u qeybsama. waxaa ka mid ah soon fardu cayn la yidhahdo, fardu cayn, oo hadda ka hor ba xalaqa uga soo hadalnay. waa soonka maaragtay bishaan barakaysan ee ramadaanka ah aynu soomayno. waa fardu cayn calaa kuli mukalaf. wuxuu fardu cayn ku yahay, cayn waxa weeye qof walba waa laga rabaa, qof walba goonisaa looga rabaa. laakiin qofku waa inuu mukalaf yahay oo qof muslim ah oo qaangaaray oo caqligiisii uu taam u yahay inuu yahay weeye. markaa fardu cayn baa la yihahdaa. ilaahay baa nagu waajibiyey zaman mukhasas ah oo bisha ramadaan dhexdeeda ah, waana soomka bisha ramadaan weeye. marka kaa waa nooc waajibka ka mid ah, waa fardu cayn. waxaa ka mid ah soonka waajibka ah mid sabab mucayan ah oo xaq ilaahay laga galay ku waajibay. ilaahay kuguma waajibin, laakiin wuxuu ku yidhi haddaa waxaa samaysid soom baa lagaa rabaa. marka adiga ayaa maaragtay lagu khiyaar geliyey. waa siyaamka la yidhaahdo sawmu alkafaaraat. kafaaraat sida qofku markuu dhaarto oo kale, kafaarat ulyamiin. hadduu qofku inta dhaarto ilaahay magaciisa uu ku dhaarto oo wixii uu ku dhaartay uu rabo inuu ka noqdo, waxaa la rabaa sidii ilaahay qur-aanka uu ku sheegay maaragtay kafaara inuu la yimaado oo cidqu raqaba ama iطcaamu 10 masaakiin. hadduusan awoodin markaas baa waxaa imaanaya markaa inuu soomo 3 ayaam. waa waajib, waajib weeye. kafaaraة اlyamiinka ka mid ah. kafaaraة الdhihaar waxa la yihahdaa ka mid ah. waxaa ka mid ah kafaaraة اlqatl الkhaطأ, qofkii qof muslim ah si gaf u dila inuu waxaa la rabaa diyana bixiyo oo kafaarana la yimaado ayaa loo baahan yahay. wahaakada. marka kaasna waa nooc waajib ka mid ah ama category kale waaye, ama nooc kale ama qeyb kaloo ka mid ah oo waajib ah. laakiin fardu cayn maahan. waa qofkii isagu waxaas galay ayuu waajib ku yahay. midka kale oo isna waajibka waxa weeye waa soon waajib ah inaad samaysid lagaaga baahan yahay, laakiin adaa isku waajib yeelay. adiga ayaa isku waajib yeelay. waa soomka loo yaqaan nadarka, annadru baa loo yaqaana. haddaad aad tidhaahdid ilaahay waxaan ballan uga galay inaan soomo, ilaahay hadduu imtixaanka igu guulaysiiyo. ilaahay waxaan ballan uga galay
haddii ilaahay ii soo celiyo maaragtay wixii iga dhumay ilaan ilaahay u soomo wixii baa ilaahay kuu soo celiyey waajib waxa kuwa inaad soontidee marka waa nooc waajibka ka mid a marka soonka waajibkaa darsigeenan maanta waxa weye waa wacdi keliya maaha waa cilmi saddex nooc buu qaybsamaa mid waa fardu cayn waa bisha ramadaan weeye in la soomo cayn kasta oo mukalaf ah oo baaliq ah oo muslim ah oo caaqil ah baa looga baahan yahay oo aan cudurdaar lahayn dabcan acdaarta insha allah xalaqa gooni a uga hadli doonaa acdaarta banaysa inuu qofku afuro isagoo muslim ah oo baaliqa oo caqligiis jooga wax laga in soomin baa laga yaabaa asbaab jirta daraaddeed waa musaafir waa jiran yahay waa xaydkaa ku dhacay waa badan yihiin gadaal baan ka sheegi doonaa marka waa soomka fardulcaynka ah haddii lu yahay soomka fardulcaynka ah waa kee weye waa bisha ramadaan soom waxaa jira waajib ah oo laakiin sabab leh waa kafaaraadka wey soom waxaa jira waajib ah oo qofku isagu isku waajib yeelay waa soomka nadarkaa wey soomka marka saddexdaas ayuu qaybsamaa marka waxaanu ka hadlaynaa maanta wax yar soomka ramadaanka soomka ramadaanku waa waajib waajibnimadiisana qur-aanka ilahay buu ku soo arooray ilahay baa yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum الsiyaamu kama kutiba calى aladiina min qablikum lacalakum tattaquun sidii dadkii idinka horreeyey loogu waajib yeelay loogu ilzaamiyay idinkana laydinku waajib yeelay laydinku faral yeelay nebiguna sal اllahu alيه wasalam waxa uu yihi maaragtay buniya alislaamu calaa khamsi islaamku shan buu ku dhisan yahay wuxuuna ka sheegay markuu shahaadada sheegay oo salaada sheegay zakada sheegay soomka kadibna xajka ayuu sheegay ninkii acraabiga nebigu markuu u yimid uu yihi waxaa laygu leeyahay sooma ii sheeg nebigu wuxuu yihi bisha ramadaan baa lagugu leeyay baa waajib kugu ah wax kale dusheeda ma yihiin laa buu yihi ilaa an tadawac inaad tadawuc la timaadid maahane soon kaloo waajib kugu ah ma jiro inaad tadawuc la timaadid iyo dabcan soomamkii aynu ka sheekaynay ee asbaabaha khaaskaa lahaa maahane bisha marka ramadaan iyo waajibnimadeeda iyo fadliga uu leeyahay in la soomo xalaqaad hore ayaan kusoo bayaaninay aan kusoo caddaynay bisha ramadaan marka soonkeedu waxa uu soo maray maraaxil buu soo maray horta waxaa lagu faral yeelay bisha shacbaan sanadkii labaad ayuu soonku la faral yeelay oo waxaan ognahay bishii sanadkii labaad hijrada nebigu saad ogtihiin salى الlahu عalيه wasalam cahdina wuxuu joogay waqtigiisii waqti ka mida maka cahdigii makiga ahaa 13 sano ayuu maka joogay markii hore intuusa madiine usoo hijroon oo dadka wuxuu ugu yeerayay diinta ilaahay wuxuu aad u tarkiisinayey qur-aanka soo degayna u badnaa in la sugo caqiidada saafida ilaahay keliya in la caabudo subxaanaه wa tacaala dadka in ilaahay lagu xiro ilahay in laga cabsado ilahay inuu soo noolayn doono alixyaa ilahay inuu wax dilo dadka in hadhow la xisaabinayo naar inay jirto inuu jiro janna inay jirto wahaakada waxaa qur-aanka makiga saas u badnaa nebiguna dadka wuxuu xoogga saarayey maaragtay caqiidada markii dambe oo madiine la tegey 10 sanoo dambe qur-aanka soo degay madani baa la yidhaahdaa wuxuuna u badan yahay axkaamta islaamka markaasaa la faral yeelay jihaadkii salaadihii soonkii xajkii wahaakada way kala dambeeyeen soonka marka waxaa la faral yeelay sanadkii labaad bish shacbaan ayaa la faral yeelay laakiin faral yeelidiisu sida diinta islaamka looga bartay maraaxil ayay soo martay ilaahay waa xakiim alkhabiir alaa yaclamu man khalaqa wa huwa alatiifu alkhabiir isagaa addoommada abuuray waxa u suubana iyo sida tadarujka ilaahay subxana wa tacala waxaad ogtihiin samaawaadka markuu abuuraya dhulka isagoo awooda kun inuu dhaho buu ilaahay wuxuu abuuray samaawaadka dhulka 6 ayaam 6 maalmood buu ku abuuray ilmaha ilaahay subxaana wa tacaala hal mar buu caloosha hooyada buu ku abuuri kara lakin tadaruj inuu nudfa yahay yahay mudqa uu yahay calaqa uu yahay lafo uu yeesho 9 bilood tadarujka wahaakada waa sunatu tadaruj walidaalika dacwada iyo diinta iyo marka dadka loo sheegayo in looga bilaabo alashal falashal wahaakada dacwadii nebiguna saas bay ahayd ilaahayna uu amray udcu ilى sabiili rabbika biاlxikma wاlmawcidati اlxasana wajaadilhum bilatii axsan nebigu markuu mucaad diray xataa oo yeman u diray wuxuu yihi inaka taأtii ilىa qowmin ahli kitaab baa utegi niman ahlu kitaab baa utegi doontaa sidaas daraaddeed waxa aa u horeysa aad ugu yeerta horta tawxiidka ha noqdo caqiidada ka sax inaad u jambi garis u boodid adoo meesha tan wixii awlawiga ahaa ee muhiimka ahaa marka hore adoona aan ka sixin inaad meel kale u boodid wax munaasib ah ma ahan nebigu sal اllahu alيه wasalam marka iyo sunnada ilaahay waxaa ka mid ah ee kowniga ah sunata atadaruj axkaamta nala ku faral yeelay oo dhan saas bay ahayd salaada jihaadka maaragtay xajka cibaadaadka waxyaalaha nala ka xarimay khamrada waad ogeydeen khamrada markii la xarimay hal mar joojiya lama dhihin
markii hore waxaa la yidhi maaragtay khamradu wax fiicanna waa leedahay wax xunna waa leedahay mar kale waxaa la yidhi laa taqrabu الصalaata wa antum sukaara mar kale waxaa la yidhi wahaakada ilaa markii dambe ay timid fantahu ka dheeraada soonkuna wuxuu soo maray laba marxalo ayuu soo maray marxaladii hore waxa takhyiir ayay ahayd takhyiir qofkii rabaa ha soomo baa la yidhi qofkii rabaana oo kara isagoo kara sadaqaha iska bixiyo saas ayuu ahaa almarxala alأulى marxala takhyiir takhyiiru اlmukalaf almutiiq qofkii isagoo mukalafa oo awooda lisawmi bayna amreyn baa la khiyaar geliyey الصiyaamu wa huwa الأfضل isagaana fadli badnaa wاlإfطaaru maca alfidya intuu afuro uu fidya wax bedel ah uu iska bixiyo masaakiin la quudiyo fidyadu waxa weye iطcaamu almasaakiin masaakiinta oo qof cunto ku filan oo dhexdhexaada maalinta la siiyo qofkii wax ka badan sameeyena hadee khayr ayuu ziyaadsaday ilaahay qowlkiisa ayaa ku soo degay taas yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum الصiyaamu kama kutiba calى aladiina min qablikum lacalakum tattaquun ayaama macduudaat faman kana minkum mariida أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون sida mufasiriinta iyo axaadiidta nebiga ku cad sal اlه عليه وسلم markii hore khiyaar bay ahayd وعalى الذiina yuطiquuna waxay ahayd qofkii kara fidyaha iska bixiyo laakiin markii dambe markii ay soo degtay marxaladda dambe oo ilaahay uu yidhi فمن شhهد منكم الشhهر فليصم aيadda qرآaنka شhهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شhهد منكم الشhهر فليصمه qofkii bisha arka oo aan cudurdaar lahayn aan musaafir ahayn aan jiranayn cudurdaarada aynu sheegi doono xalaqo kale aan kusoo qaadi doona aan cudurdaaradaas aan lahayn oo bishii arka aragtidaas ama isagoo ishiisa caynta mujaradka ku arka ama qof muslima caadil ha u sheego falyasumhu khiyaar ma leh khalaas ha inu soomo wey وعalى الذiina yuطiquunahu in sha allah markaan axkaamta fiqiga sheegayno ayaynu ku faahfaahin doonaa waxaa markaas ay sida ay mufasiriinta iyo taabiciinta iyo saxaabada iyo taabiciintu ay caddaynayaan axaadiista nebigana ku sugnaatay وعalى الذiina yuطiquunahu xukunkeedu wuxuu baaqi ku noqday qofka weyn ee uu dhibahayo maaragtay soonku iyo qofka jiran jiro aad u daran oo uusan la soomi karin ayay khaas ku noqotayo qofka weyn oo haramka ah ee waayeelka rag iyo dumar ku doona ahaado iyo qofka jiran dadka insha allah xalaqo dhan baan uga hadli doonaa dadka diabetiga ah iyo dadka jirooyinka aysan la soomi karin qaba dadka transparencyga kidney maaragta loo sameeyey iyo waxa lamid ah ama xubnaha kale aan inay dawo qaataan la rabo waqti yar gudihiis dadkaas oo kale diinteena islaamka sida ilaahay qur'aanka uu ku sheegay yuriidu allahu bikum اlyusra walaa yuriidu bikum اlcusra ilaahay wuxuu leeyahay dhib idin lama rabo ilaahay fudayd walidaalika diinteena diinu aلsamaaxa wey diinu alyusra wey nebiguna wuxuu yihi diinta qofka isku dhiba iyo qaalib bay ka noqotaayo dhanka kale buu u gudbaya laa ifraada walaa tafriid diinta islaamka waa diin dhexdhexaada waa cadl waa cadaalo waa diin ilahay soo dejiyey waa diin saalixatun mid u suubanta fi kuli zamaanin wa makaan meel kasta iyo waqti kasta qofkii marka quluwi iyo tashadud iyo takfiir iyo balaayo la yimaada isagaa marka dambe madaxa derbi ku dhufanaya markaasa waxaa arkaysaa isagoo meel kale usii xad tilaabay tilka xuduud ullahi falaa tactaduuha buu ilah leeyahy xuduudda ilaahay waa caddahay ha dhaafinina marka diinteena islaamka waa aragteen walidaalika waxaa jira waxa la rukhas qofka hadduu safro waxaa la yidhi maar salaada ha gaabiyo hadduu rabo ha iska afuro haddii maaragtay gabadhii xaydka ku dhacdo ha iska afurto haddii qofku maaragtay uu jiran yahay ha iska afuro haddii qofku maaragtay jihaad iyo dagaal ku jiro salaad nooc kaloo fudeed ha u tukado diinu waxaa la dhahaa magaceedaba waxaa la dhahaa maaragtay diinu aلsamaaxa waاlyusr ya weeye nebigu markuu saxaabada dirayo bashiruu buu dhihi jiray bashiruu walaa tucasiruu yasiruu bashiruu walaa tunafiru bashiruu walaa tunafiru yasiruu walaa tucasiruu saas u dhihi jiray sal اله عليه وسلم markuu saxaabada dirayo ducaadda ah dadka u bishaarayo khayrka u sheego oo maaragtay dadka hadidinina dadka diinta wax adag ha uga dhiginina taa macnaheedu ma ahan in dadka diinta loo fudeeyo luqunta la maroojiyo nusuusta oo la yidhaha salaada saa rabti tuko waqtigaa rabti maya diinta saxdaabaa yusri ah laakiin waxaa la qofki inuu xagga
miiska kan haddaa xagga u tilowdid waa ka dhacaysaa haddaadan aadan jaranjareed cagta saarin dee maadan saarin dhexdhexaadka khayru lumuuri awsatuha marka bisha ramadaanka dersigan haddaan soo khulaasayno xalaqadatan waxaan uga hadlaynay soonku waa mainly wuxuu u kala baxayaa guud ahaan laba nooc mid waajib ah iyo mid sunno ah soonka sunanka xalaqa dhan baan uga hadli doonaa soonka waajibkaa saddex buu u kala baxaa mid fardu cayn oo bisha ramadaan ah mid qofka sabab ku keentay sida kafaaraadkii oo kale iyo mid maaragtay qofku isagu isku ilzaamiyo kii ahaa nadarka markaa kadib waxaanu sheegnay oo kale inuu soonku uu soo maray maraaxil uu soo maray marxala markii hore khiyaar ahayd qofku isagoo awooda in uu afuri karo hadduu rabo soomi karo iyadoo afdal ay tahay iyo marxalad dambe qofkii la yihi mukalafka ahaa ee aan cudurdaarka lahayn inuu soomo faman shahida minkum shahra falyasumhu daawadayaal waxaa intaa noogu eg xalaqadii shanaad barnaamijkeenii marxaban ya ramadaan ee idinkaga imaan jiray tv-ga kalsan waa barnaamij xalaqaad isdaba yaal ah oo aynu ku sharxi doono fadliga iyo wanaagga bishan ramadaan ay leedahay iyo axkaamta qofka muslimkaa inuu ogaado looga baahan yahay in sha allahu tacaala nagala socdo tv-ga kalsan intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa ilaa inta aynu ka kulmi doono xalaqada soo socota waxaa idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu